rasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dirar oo shirjarayd ku qabtay xafiiskiisa magaalada Laascaanood ayaa baaqdheer u diray bulshada reer Laascaanood inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka Sool kadib markii muddooyinkii u dambeeyay ka dhaceen magaalada Laascaanood dilal qorshaysan loo geystay dadka haldoorka ah. shacabka reer Laascaanood waxaan leeyahay waan ognahay in aanooyinku ay soo noqdaan mararka qaarkood haddii ayna maamulka la shaqeyn haddii ayna laamaha amniga la shaqeyn haddii ayna wax dilay sheegin haddii ayna meeshu markuu maray ayna sheegin haddii ayna mataqaana gaariga lagu qaaday ayna sheegin oo laamihii amniga iyo maamulka ayna xogta siin wardi waxa way wax qabashadii iyo soo qabashadii way kala maqanta maamulku waxa uu kula shaqeeyaa oo ku tirsan yahay shacabkiisa maamulka waxa indhaa ah ee dhigaha u ah ee tilmaama ee gacan ku dhiglaha sheega ee dambiilaha sheega ee tilmaama waa shacabka deegaanka ee magaalooyinka degan ee mataqaana nool ee waxa weeye xilkaska intii hadii leedin ka leeyahay oo hortiini dadkii lagu leeyahay hardoolka oo hortiina uu ninka ku baxsanay gacan ku dhiglaha oo idin sii dhaxmarayo oo idin sii hooyanayo oo warkii lagu hawlgeli lahaa ama lagu mataqaana lagu dagaalgalay ayna sheegeen tilmaada riyaalow waxa way wax qabadkaygu wuxuu noqonayaa nusqaan buu noqonayaa annaguna waa dhaliilnaana idinkuna dhaliishu waa nala qabtaan waxaan leenahay waraan iska ashano annagu haddaanu maamulka nahay waad ogtihiinoo gacan ku dhiglayaasha waa qabanaa oo kuwa horaanu qabanay oo marqaataa ka tihiin oo waxa way waad ogtihiin inta aanu gacan ku dhigla qabanay ee gobolka dhibaatada ka geystay haddii midhiya loo baxsan oo kaana idinku aad ka shaqeyn weydeen eedi kaliya qaadmin dhamaantood wada qaadana sidoo kale waxaa la soo gabagabeeyay shir uga socday 3 casho magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool odayaasha iyo waxgaradka haldoorka aqoon-yahanka iyo ganacsatada ayna kaga tashanayeen sidii meel looga soo wada jeesan lahaa dadka dilalka qorshaysan ka geysanaya magaalada Laascaanood iyagoo xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka kan degmada ugu baaqay inay wax ka qabtaan dadka dilalka qorshaysan ka geysanaya magaalada ugu dambeyntii odayaashu waxay ugu baaqeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu wax ka qabto dadka dilalka geystay gacan ku dhigayaasha ee buuxdhaafiyay jeerasha kala duwan ee Soomaaliland sidii loo toogan lahaa xusin mudan in wafti ballaaran uu hogaaminayo wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Salmaan Cali Koore uu soo gaaray magaalada Laascaanood isagoo u yimi sidii wax looga qaban lahaa dilalkii u dambeeyay ka dhacay magaalada Laascaanood. Qadar Maxamed Cabdi BC 24 TV